labadii cayaar ee la cayaaray soolna aan la cayaarnay gabileyna aan la cayaarnay markay kubadda bilaabanayda shaqo kale ma hayn waan daawaday waan dhamaystay labadii cayaaroodba labadii cayaaroodna waa laga badiyey cayaartii hore waxaan islahaa waa la sixi doonaa qaladka mid ka badanaa yimidba kii hore qalad kubadeed u ahaa kii labaad wuxuu noqday qalad dhexdooda ah ciyaartooyda xulka ani aadaan ugu farxay kubaddii lasoo bandhigay gabiley allow naga dhameeyay gaartay koobaad ciyaartii hore ee soo dhacay maxaa kamid ah qaladaadka jiray cayaartii hore xoogaa difaaca qalqalaha yimid waxaan dareemayay inamada gadaale hobseedka sidii looga baxo iyo islama haysan waayahay ciyaartan labaad ee shalay dhacday gabiley maxaa ka qaldanaa togdheer ciyaarta labaad waxay soo galeen tiimkoon fiicneenaa soo galay annaga markaa waxaan islahayn wayda mateli karaan aad baa loogu dadaalay gobolkaa u dadaalay inamada jaanuska ay heleen hore looma helin dadka qaar waxay leeyihiin xulkani wuxuu laysu keenay un markii la yidhi ciyaarihii baa la qabanaya oo intii hore uma eekaba xul tababar badan soo qaatay oo soo diyaar garoobay taasi adigu ku muuqanaysa haa weligeedba burco ma sii tabaabashaysato ilaa anigu 80aadkii aan joogay weligeed ma tabaabashaysan hargeyso marka la yidhaahdo kubadaa la cayaaraya ee magaalada muqdisho la aadi jiray waagii soomaalida ahayd 3 bilood la xariin jiray 3 bilood ayaa la xariin jiray waa la dariiray jiray baska ay meesha ku mareeday ku dhaafeed walahi waad yaabay baska quruxdiisa hargeyso tog dheerna baabuurtii haddaad taqaano booliska nooca lagu qaado maaragtay isteeshimada maan maa la dhihi jiray baabuur weynoo sida inay maxaabiis yihiin marka mar kasta daryeeleyska waa naga xumaa haddaan reer burcanaanay kubadda qiimo badan ma aanan siinayn laakiin yeelkadeedii 20 ninaan soo taajino ayaa hor istaagayay muqdisho iyo kismaayoba 20 inanee la keeno runtii waa niman ragnimadooda aan jeclahay aniga qaabka ay u cayaaraan wax badan haddaysa hayn xataa mantumaani qofka ku raacaya qofkaan nuucsan karin watay adigu macallin waxaad ahayd macallinkii macnaha ugu guulaha badnaa 2 koob baad qaaday koobna adaa nadiga tababaray xulka 4 jeerna waxaad u baxday finalka ama kama dambaysta maxaa barigeedin caawinayay waxaan ku saxayaa 2 koob waxaa qaaday cabdikariin muraad koobna asaga ila qaado isku duwo ahaa macallin buu ahaa xilligaas waa sax naadi caafi la dhaho ani aan tababara ayuu jaanus u helay in cabdikariin muraad inuu wato runtiina asagaa maskax u ahaa in la soo badiyo waa ugu mahad celinaya ninkaasoo waayay araga ayaa ila shaqeeyey 2007 anigu 2 jaanusaan helay inamo markaas waxoogaa waayay aragahoo midnimadooda ay fiicantaho dhalinyaronimadooda fiicantaho studentiyaal ahaayeenoo qaarkood hadda waa macalimiin iskuullada wax ka dhigo marka ani waxaan helay inamo wanaagsan xidigahaagii maxaad ka xasuusataa koobkeed ku guuleysateen 2007 koobka bal xidigihii maxaa ku guuleystay koobka qaaday maxaad ka xasuusataa kubaddu waa difaac iyo dhax iyo weer goolhaye horta goolhayey ugu fiicnaa somaliland aan la imid xilligaas buufaan iskula baxa waa goolhayey ugu fiicnaa puntland markiiba ishee la raacday cayaartii ugu horeeyay ay qabtaan way u yeedheen waa goolhayey ugu fiicnaa ee somalilandna ay siiday jaa-isada difaaca aan haystay maba kala dhicinba 2 baalood niman ordayaan haysta aniga waxaa ka mid galeer ninka la yiraahdo iyo baashi iyo galeer 2 ninoo ordaayo waa ordaayo 4 iyo 5 na waan haystay waa buudi iyo mustafa xariif haddii aad la socoto xilligaa cayaarta markay bilaabato nusaan kasoo guurab dhiid sayriga markuu yidhi aniga nus waan kasoo tegay waayo tababaran inamadu way ii tababaran yihin hobseed inay ka baxaana ka go-an waxa aan nuskaa u imidna waxa waaye goolkaa inaan tiigsado dhaxda waa sii raray weerarka waa sii raray si aan gooshaas ugu dhawaado halkaana hobseedaan ku hayaa maadaama aan kaga qabiirsanahay xilligaas 2007
cayaartooydii isku timid awoodda noocaasa ma ay lahayn inay isaga tegi karaan isku hadlayn karaan hobseed bilow ilaa dhammaad hobseedaan isku hayaan hobseedaan ku haysta difaacayga tuugayga iyo tirigaygana waa shaqaynaya mana ilaawayo lambar 5-ki iyo 4-keyga awoodda badnaa xilligaas ee muuqasho Mustafa Xariif waa kabtankii 2007 4 iyo 5 gool dhalay xagee ku aragtay labadaba gool la dhalay inta gool ka war 4-keyga iyo 5-keyga iyaga waa weerar ah halkii difaacidu niman shaqadooda inta soo qabsaday dhax yimid ee hore u socdo waata markastana gool lagu bilaabay waata koobkii labaadna ee tugdheer kula guulaysateen tababarka ka qaybta ka ahayd oo tugdheer lagu qabtay kaasna anaa macalinka ahaa ka dhaxdeenaan cayaarna waa nalaga badiyay inama wanaagsan waan haystay cayaartii ugu horeeyay Hargeysa waxaan ku kala baxnay Brecho walow khaladaad ani dhaxdeeda ka dhacay cayaartii labaad howda ii dhiibtay afar wax kale iguma dhiibin laba nin aan soo galiyay 2-5 aan soo galiyay awoodana halka ahayd gobolku waa ka awood badan yahay 4.5 wax ku qaybsadaa kaasa lagu qaybinaya waa sababaha isku casil saddex jeer aan casil hada la socdo oo lagu soo celiyo ma aan rabin in lagu soo celiyo laakiin mar walba waxaan arkay khaladkan cayaartaas waa cayaar 4.5 ahayd cayaar dhaxdeena macna qabiil baa lagu qaybinaya kooxdii hebel baa kana laga soo qabanay kana reer wala la qaybinaya cayaar la qaybinayo waa cayaar qaladkeeda oo muuqdo ahaa xataa inan baan xilligii Hargeysa cayaarta bilowgii inan baan soo bedeli tagay uu diiday bedelka reer oo dhan waa ogyihiin madaxweyne ku-xigeenka saaran meesha waxa ka jira waa la ogyahay haddana markasta waxaan isku dayaynay inaan nala fahmin kubadna ma cayaari karo tiim asaga ishayo cid kale lama cayaari karo 3 dhibicna ma ka soo dhaxsan karo waa hubinta watay mushkiladda ah in kala qaybsan yihiin oo ay de 4.5 qabiil lagu qaybinayo qofkii reer hebel baa number 5 ka qaadanaya reer hebel baa number 9 ka qaadanaya leeyahay miya caqabada ugu weyn la hadhay ma saal la oran maayo waxa lagu weydiinayaa imisa macalin qaadanayda 20 inan 10 iyo 10 oo kala qaada lagu leeyahay 10 xaq ka soo qaad 10 xaq hadii la doono rag tayla baa laga tagay reer ahaan looga tagay adiguna si 10 iyo 10 waliba 10 wada socdo waa 10 ka wada socdo hadaa qof wax ka diido way wada tagayaan 10 kaas waa wada socdaan 10 ka noo soo aqlada ma dhamaan karto 20 inoo reer ka kala socdo weeye hadda maanta dhawid laba kabtan ay ku galeen garoonka laba kabtan ay ka sheekay anu waxaan oran lahaa horta inaan dib isugu laabano haddaan reer Burcana oo Burcadii aan la nimaano madaxdeedana ay tala ayaga ka go'da maalin walba inama ay dirsadaan in ama la soo xiro ama qabiil ku kala baxaan ama hawshii loo diro hawla ahayn inay galaan waxay u taalaa madaxda gobolka Togdheer dadka qaar baa yiraahdaan ciyaartooydu kaliya ma aha wax kala qaybsanay oo siyaasiyiin baa kala soo dhax galo oo kala qaybiyo oo yiraahdo adigu kabtanka xidhayo adigu kabtanka xidhayo faragelintaasi mid ku jiri jirtay xilligeeni marka horeba inan yaro adi aad tababareedo macalinku oranayo haddana barnaamij la imaanayo waa dareemida cid baa dabada aniga xilligeyga macquul ma aha haddaan kuu sheego ani 3 jeer aan casil sabaan isku casilan kuu sheegay inamadii adi aa qoratay oo 10 iyo 10 ka ahaa ayaa 10 ku yeeray caawa waxay ku oranayaan macalin anaga ku yeerna soo dhawow kabtanka wiligeena anaga haysan jirnay dan reer hebel nahay kabtanka doonayna habeenkii dambe 10 kala maqlaayo way ku yeerayaan macalin kabtanka doonayna kabtanka anigu aan garow ma rasuul saara jagada intaan la eg ee isku haysto reer waliba loo soo xulufaysan kabtanka miyaan ahayn calalka yarka halkan lagu xiro dawaarka laga sii qaato oo macalinka uu wakiil uga yahay inta kubadda garoonka la ciyaaray kadibna la iska furay marka macalin aan halka kugu celiyay ma waxa leedahay meesha siyaasad baa ku dhex jirto oo waxba dad baa qurminaya kale oo ciyaartooyda kaliya ma aha waxaan ma ciyaartooyda niman dhalinyaro oo nadiif ah laakiin shaqa loo diraya shaqadiina telefoonaa loo diraya telefoonaa lagu la hadlaya sawa adin dhanaad fariisiday oo fadhiyo miiska juuriga ku fadhiyo ayaa macquul inuu kira macalin ciyaarsi
telefonaa loo soo diraya waxaa leeyahay ciiddaa ku haysato waa ku sidee ma cayaarti ha xaggeed u fadhidaa xaggeed u fadhidaa la hadal macalinka marka xoogaa tababar baa ka dhiman wacyigelin fiicanaa ka dhiman xoogaa qolooyin badan oo aad moodo ciyaalka xoogaa way ka faa'iidaystaan nin baa ku taliyey baa la yidhi haddii sidan waxaa dhaantay iyadoo marba reer soo ciyaaro oo reeraha magaalada degan oo koobka soo qaado waan arkay mar waa lagu taliyey cayaaraha in laga joojiyo ilaa ay wax iska bedelayaan marna hawshaan haddaan la deynin aan iska caddaysano marba reer ha soo qaado koobka reer xooggan ha soo ciyaaro dee macnaha saasay noqonaysa anigu kaa afkeyga maaha koodhi laakiin markaan lahaa xal ha la raadiyey way ka mid tahay xalalka la raadinayo mar haddaan la midoobin xal in la raadiyo waa looga baxo ugu dambeyn macalin maxaad soo jeedinaysaa macalinkii aadka looga yaqaanay gobolka togdheer adiga waxaan kugu arki jirnay garoonkii burco adigoo kooxdii caafi iyo dee kooxdii xulkii gobolkaba tababarayo tababar xoogan siinayo oo iyadan ciyaaraba jirin oo kooba soo dhaweyn haddana tababarkooda jeer dhisaya in yar aan dib kuu xasuusinaya xilligii Spain ee koobka qaaday laba naadi oo waaweyn ayaa u sabab ahaa Real Madrid iyo Barcelona awoodda naadiga waa awoodda dalka kaasaa sababay inay qaadaan cayaaraha adduunka burco STC iyo caafi waxay sababi jireen niman awood leh inay yihiin waxaa laga helayay markii labadaa koox laisku dhufto waxaa laga helayay 20 inan hargeysana hor istaageeda Soomaaliyana hor istaageeda waa awood laba naadi oo awood leeyahayaan taageerayaasha ay wataan iyo maanta ay cayaarayaan haddaad aragto waa yaab leh waa laba naadi oo awood leh aqlibiyad leh oo magac ku dagaalamayo macallin wataano marka laba naadiyaashii oo kala jirin hadda laba naadi oo awood leh magaalada u qaybsan ma jiro